KNN nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midimiidaysay maahino si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar janalkan KNN wareer kalamaanow haddii dawladnimadu qof laga dhigo sawir ahaan madaxtooyadu waa madaxii luguhuna waa xeerdejintii gacmuhuna waa garsoorkii feeraha iyo calooshana waa dawlad goboleedyadii haddaba afarta xubnood haddii ay xanuunsan yihiin midad hor dawayn lahayd war lugaha la daweeyaa iyagaa meel kasta lagu aadaay war gacmaha la daweeyaa ilaa iyagaa wax lagu qabsadaa war madaxaa la daweeyaa sababtoo ah indhihii iyo dhegihii baa ku yaalla war calooshaa la daweeyaa ay calir meel kale kama yimaadeen warnimayow haansaablaan malgaada kor ololadasin sheegasan feerogii saabkan hayan ma daawaytaana madasagaada maase arhaanyo saab ma bukaane maskaxdaan daaweyn lahay iyadaa caqligii ku jiraahe adaro meel la daaweeyiyo meel la daayatoona midnaba ma lihidine ordoo la daayaniyow wareedhaa war ma haysaane maamul goboleedyadii iyo xisbiyadii mucaaradkaa in badanoo ka mida iyo siyaasiyiin kale iyo xildhibaano ayaa ku shiray shalay Nairobi hadda siyaasadii waa kululaatay war intay kukuyada u yaacayeen maxay ugu iman waayeen Jamhuuriyadda Soomaaliland warnimayow saas maahane xildhibaan fiqi wuxuu yidhi xukuumad cusub baan soo dhisaynaa xukuumaddaanina waa fashilantay madaxweynuhuna waa kii yidhi tala hallay siiye waxaan kula talinaynaa inuu xukuumaddan rido hore waxaa loo yidhi shimbiriba codkeed ciiday talahumoy halkaba war hatani leeya hukuumadda isridoy warnimiyow ma udubku le inta kasiibane antilay suraane may u amal war maye halkan rabe roobku ma helay weeyi war professor Gandi wuxuu yidhi maqaamka magaalada Muqdisho dawladdaana waa inay cadaysaa ilaa iyo carta laga hadlayo werina go'aan cad lagama gaarin war i'tiraafka Soomaaliland ilaa 90kii baa laga hadlayay maxay wax uga soo saari waayeen qoladani war wasiirka warfaafinta Daahir Maxamuud Geelle waxa uu yiraahday mucaaradku guuxooda waa ka dheereeyeen yeysan ka badbadinin aryaadaha madaxweyne farmaajo shala masarow aaday maantana wuxuu ka qayb galaa shir looga hadlayo xaaladda Suudaan oo kacsan iyo Liibiya war waa kaafiye kala dheeriye qof bukaa wax ma daweeye madaxweynuhu intuu shirka Suudaan iyo Liibiya ka qayb galayo Soomaaliya xagee ku ogaa warnamiyo ani warsiin haaya galmudug walwalba sidii doonimayna wallahi aan loo dhameyn billahi aan loo dhameyn wallahi aan yeelayn billahi aan la yeelayn si aan la haayan shirki madaxweynaha ulma u diinka anfuri ya qaada ay hatana war saas ma ahane dawladdu ayadaa galmudug laba wafti ka casuumatay waftigii rasmiga ahaa ayaan carooday war macallin Maxamuud baa galmudug culummo ka ah maxaa asaga loo casuum waayay hadii culummo la rabo looma dhamadii naftiya ma aha war gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu yidhi 3,000 askari iyo cusub baan xamar u diyaarinay Rabadaanka afurkan oo harantiyaana oo adeer kuwii hore ma baali bay noqdeen war may amniga sugayaan warnimayo hal siyaasadii amniga sheekaysanaya ayaa waxa ka hor yimaada in odaya markaas ba wuxuu ku yiri waa habeen saqdhahay neecawdi meel ku sheega war adooga mar waa daaroy meelan arway war meesha maanta salaada roobdoonta laga tukaday waa beledweyne war meesha biriqdu maanta dadka ku laysay waa buula fulay oo ka tirsan gobolka Baay wareedaa waxa la yiri kalamaan tartamayaal ma aha xilal u taagnaa tixdeediyo tiraabkuna ma aha tacab ku doondoon tiradii shaqada loo dirtay toosh u noqotaayo tala bixin bay wadiye toosin waligeed war anigu waxaan idin dhihi lahaa haddii xoogu dhaqaaqo difaacu xala seexday xagtirkii u baneeyo taasi weyla xaraan war macaanna ma lihidine waligiin bas ku meermeeraysto horta lagu kala kaxaynaya meesha war Iiraan iyo India ciidankoodii bay isku biiriyeen war madaxweynayaasha Ruushka iyo waqooyiga Kuuriya Putin iyo Jinja waxay ku shirayaan maalmaha soo socda Moscow war Moscow Talyaaniga abuuray ay faraka haayeen warnimayo ani waxaan ku talin lahaa in madaxweynayaashii hore Afrika ay kulmaan hadday kuwaas u shiraan Donald Trumpna inta la geeyay waxa aad sheegaysaan ka fiirsada dalkiinana u shaqeeyo horta madaxweynayaashii hore Afrika anagu meeqan ku leenahay wada warka noo sheeg Afrika si baan Allah hayda barakeeye